waxaan rabaa inaan ka hadlo arrintii BB Wall barnaamijkii ka soo yeeray BB Wall iyo dawladda Somaliland waxaan u arkay dhibaato weyn oo Soomaaliya ku soo habsatay inay tahay waxa weeye in maaragtay dawladda Imaaraadka lala xisaabto safaaradeedana go home la siiyo oo ay laabato oo ay tagto dawladda Itoobiya ciidamada ka joogana ay baxaan dalkooda ku laabtaan maadaama khaladaad badan ka yimid dawladdiina la socon waayeen la shaqeyn waayeen waa inay ka baxaan labadaba dawlad dadka ka baxaan waxaan ka leeyahay arrin khalad weeyaan ku xisaabtanka iyo wada hadalka iyo muxuu maamulka oo dhan waxa la dawladda Soomaaliya ayaa iska leh magacii waa maxamed guura la yiraahdaa John aan ku magac dheerahay agaasimaha DB Wall wuxuu rabo dhigi karaa waxa waa nin oo ma aha shakhsi oo waxa waa siyaasi ma aha waa shakhsi ganacsada waay kulliitu waxa waa hadii uu yiraahdo dawladda Soomaaliya waxay ka qaban karto ma jirto mana joojin karto haduu yiri waa wax uu iska yiri oo maartay siyaasad shaqo ku lahayn dawladda Soomaaliya naftarkeeda hatta jawaab inay siiso ma aha ninkaas no arin iska hadlay aniga saasaan aan qabaa fikirkeyga hay'adda DB Wall waxaan isleeyahay khaladkii ugu weyn ee Soomaaliya ka gashay mana aha in ayaga kaliya ay ku sugantahay dawladda Imaaraadka iyo xulufadeeda oo dhan ayaa arintaasi hoos ka riixaya waxaan leeyahay aniga marka dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ha u yeerto safiirka u fadhiya Imaaraadka dalka ha weydiiso arrimahani in dawladdeeda ku lug leedahay in kale hadii ay ku lug leedahay dawladda waa in wadanka laga saaraa Imaaraadka